soo baxay baryahan dambe dhalinyar gacanta ku xidhan waxa la yiraahdo caag ama silsilad ama baraarug wixii la oran jiray oo qaarkoodna qurux ay ka deeyaan kuwa kalena ay ka deeyaanba in ay difaac ay ka tahay isha iyo wax la mid ah maxaa sheekh arinta xukunkeedu uu yahay waxa weeye horta qofku marka uu wax xidhanayo maaha inuu iska xidhow maaha qofka muslimkii maaha qof lagu feegaro dushiisa sida gidaarka loogu feegaro kale maaha qof laga dhigto board lagu xayeysiiyo wax oo cid waliba ay ku xayeysiin kasto ku xayeysiinayso xataa haday doonto xumaan wada qofka muslimka ay waxyaabaha uu ka qiimo weyn sida daraadeed ba haboonta markuu dhar iibsanayo qof ama uu dheer kala baxa ama meel isagoo cusub ah ka iibsada in horta waxa ku qoran iska eego hadaan u garanayna cid u dhiibo dadka qaar kood ba markaad eegto waxa ku qoran wax fool xun u yahay iswa baraarujin arinta labaad ee dharka shardiga wahayna waxa weeye inaanu jinsiga kala shabahayn oo raguna aanu dharkii dumarka xidhan dumarkuna aanay xidhan dharkii ragga shardiga kale waa u yaala waxa weeye inaanu dharkani dharkii gaalada iyo lagu yaqaan iyaga caanka ay ku haayeen waa inaanu ahayn waxyaabahaas aadaabta dharka kolley ay ka mid yihiin iyadoo fara badan tahay kuwaas waa ka mid waxyaabaha yar la xidho dadkan waxa laga yaabaa dhalinyaradu waxay arkayaan qof film ku jira ama riwaayad ama wax jilaya oo wax xidhan wallahi waxa lagu ilbaxaba laga yaabaa qaarkood inay u qaataan oo wax kasto gaalada ay ku arkaan inay u fahmaan inuu yahay wax lagu ilbaxayo waana wax edeb darra ay ku jirto ama aqeedo kaleba ka soo jeeda waxyaabaha la xidho qaarkood baa la yiraahdaa qowmuluudka caanu yi ayay calaamad u yihiin qaar baa nimankan hinduuska ee dabcaabudka calaamad u ah ay aaminsan yihiin inuu ama isha ka celinayo ama waxyaabo kale iyo cisi lagu helo ama aqeedo uu ku lug leeyahay marka iska qaado uun maahe waa inaad ogaataa waxani xaguu ku daba leeyahay marka arrimahaas oo dhan inay dhalinyaradu aad uga feejignaadaan oo kuulahan faraha badan iyo baraarugahan iyo waxan la xidhanayo inay ka xoroobaan baa u wanaagsanaynu kula talinaynaa markuu aqeedo ku daba leeyahayna waa arrin khatar oo gaalnimo qofkii u saari karta haddii uu ogaado uu bareero